العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. وعن سهيلي كتابكي عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني بن علي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. marka waxaan soo gaarnay الحديث الحادي والثلاثون حديثك كوبيو صدنات عن عبد الله بن عمر وحا لغا وري عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أما رضي الله عنه عمر إلى عمر أبي صحابي معي عمر بن الخطاب قال وحير يا رسول الله رسولك إلهي أيرقد مسيحنا يا أحدنا متكان وهو الجنوب يسوى الجنابة قبه قال وحير النبي عليه الصلاة والسلام نعم ها إذا توضأ قرته ويستيستو أحدكم متكين فليرقد هالسيحظه والحال هو يسوى جنوب أو جنابة قبه. حديث كان وحاوريي عبد الله بن عمر با وحو ليهي عمر بن الخطاب ayaa nabiga u tagay عليه الصلاه والسلام kadibna wuxuu weydiiyay su'aalo wuxuu yiri qofkaan isagoo janaabo galay oo janaabo qaba miyuu iska seexan karaa buu isagoo qabaysan nabiguna wuxuu yiri عليه الصلاه والسلام ha haduu weesaysto uu iska seexan karaa. marka waa saddex qaybood. qaybta hore waxa weeye sida wanaagsani qofku haduu janaabo galo inuu qabaysto weeyaan inuu soo qabaysto iska zuuliyo janaabadii weey. tan labaadna waxa weeye inuu weeso qaato iska seexdo hadhow markii xilli salaadeed la gaaro oo markaa qabaysto. waa midda sunnada ah oo ismaadayaduna maaragtay muxuu ahaa haddii aad qabayskii weydo weesadaad inaad weesaysato. midda kalena waxa weeyaan inaad iskama seexato adigoo midna la samay adigoo janaabo qaba ma aadan qabaysan mana aadan weeso qaado iyaduna waa laga fiican yahay laakiin xaraam kuma aadan dhicin xaraam kuma dhicin laakiin waa laga fiican yahay. sida fiicanna maxay ahayd inuu qofku qabaysto marka horeba hadduu waayo inuu weeso qaato haddii uu ka tago waa karaaho laakiin maaragtay dembi kuma dhicin hadduu labada ka tago. عن عبد الله بن عمر وحال قوري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وحير عمر يا رسول الله رسولك الله يرقد مهرد يا ومسيحنا يا حدنا متكام وهو جنوب سوى جنابه قبه. قال النبي وحير عليه الصلاة والسلام نعم ها إذا توضأ هدوء ويستيستو حدكم متكين فليرقدها يسكسحه وهو جنوب سوى جنابه قبه. الحديث الثاني والثلاثون حديث كلبي صدنات عن أم سلمة وحال قوري زوجي النبي صلى الله عليه وسلم قالت وحيتري جاءت أم سليم باتمد كبدا ليراه امرأة أبي طلحة ويان إلى رسول الله رسولك الله يتم صلى الله عليه وسلم فقالت وحيتري يا رسول الله رسولك الله إن الله لا يستحيي كما حشوض من الحق حقه فهل على المرأة هوانيد الدشيد مياه من غسل قبيس إذا هي احتلمت هذي اسكو ردبته أما أي ريوته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال له وحير نعم ها إذا رأت الماء هذي بيأركته. أم السلامة waxay kamid tahay haweenkii nabiga mid kamid weey. أم السلامة iyada waxa la yiraahdaa Hinda bint Abi Umayya al-Makhzumiyya wa reer Bani Makhzum. Abi Salama ka dhintay dadkii hore islaamka mar qaatay ahayd haduu ka dhintana nabiga guursaday alayhi salaatu wasalaam. nabigu markuu guurkeeda doonayna waxay tiri nabi Allah anigu waan masayr badanahay caruur waa leeyahay qof weyn waa ahay رسول الله تعالى واحترام لقى دنبايو ayaa loo baahan yahay arintaas hal aqdigo. rasuulkuna wuxuu عليه الصلاه والسلام masayrkan waan kaaga duceyn ilaahay baa ka wadi muxuu hadad weyntan ana ka sii weyn caruurtu waa caruurtay saasa hawle lagu dhameeyay marka way guursatay markay ugu duceeyay nabiga عليه الصلاه والسلام. أم سليم baa soo hartay. أم سليم وأنس هويدي أم سليم بنت ملحانة ليلى وأنصار يدنا واحد قبل شري مالك وأنس أبيه مالك بن النضر ومالتي سجوا إسلام وحنا اللي ود للشام يدو مركا أي نيك ليلى أبي ضلحة أي جورس مركا دم أبي ضلحة وهي كتري مركو دمعين وجورسدو ووصل جت فريستي وهي كتري هي هو وأنا إسلامتها كذا إسلامتها
meherkayguna waaba islaamkaasba wax kale kaama rabo anugu saasaa lagu dhameeyey hawsha marka carruurna waa u dhashay marka waxay tiri umu salama marka hadda gabdhaha jooga dhowr kun oo euro la iskaga baahan yahay hawlahaas islaamnimo iyo ya waxaad la yaabaa dadkii islaamka iyagu ahaa ayaanba islaamkiiba danaynaynba mushkiladan haysata annagii muslimka haysanay marka qof kaloo banaanka xaguu ka imaanaya adigii haystay ayaan badnan ka lahayn oo waxaad raadinaysaa wax kale marka qofka kale waaba shakinayaaba wuxuu leeyahay qofkan wuxuu haystaa lama aamini karo hadduuba isagiiba ku kalsoonayn si qof kale soo banaanka uga imaanaya ilaa dadku waxay kusoo islaami jireen akhlaaqda saxaabada iyo markay arkaan islaamka cadaaladiisa ayay islaamka soo raaci jireen marka qof isagii ku xadayo ku dilaya wuxuu doono kugu samaynaya khiyaano iska daba wareeg waxaa ka shaqaynaya qofkii arkaa wuxuu isleeyahay qofkan hawlihiisu ma dhowa ee ka fogow الحديث الثاني وثلاثون حديث كلبية صدنات عن أم سلمة وحى لجوري أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هوينك النبي هوين يدي النبي آيات قالت وحيت رجال أم سليم باتمت امرأة أبي طلحة تمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وحيت يا رسول الله رسولك يا الله إن الله لا يستحيي كما حشوا من الحق حقا مركا ماشي كم موضع هذا المركا دوني إن شيكتو سوق بدو هذا الكلام اللي يرفع عيني أما أنا هو هبونين إن الأرك سهر مرس أما معذرة عذر الدار ما بحسه soomaaliduna way yaqaanaa wax rag loogu mahmaahmaaye ay yidhaahdaan laakiin taas dhibaatay keento wuxuu leeyahay wax rag loogu mahmaahmaahe haweenaya waxay tiri haweeney hadalkeedu soo kan haddaan dhegaysanayna ma maxaa loogu mahmaahi waay qofku hadduu hadal meel mala sheego ama haweenahada ma raggaada isku mid wax dhiba malaha taas marka waa dulmi waana meelaha gaalada iyo atbaacdooda ay ka bidhaansaan dadka muslimiinta oo yidhahdaan haweenkiyaa la xaqiraya yani wuxuu ku leeyahay wax rag loogu mahmaahmaahe haweenaya beri waxay tiri haddii haweeney hadal fiican tiri waa inaad ku mahmaada dhib mala ninka too ku mahmaahayo lamidta waxba kama duwana de hadduu hadalku xun yahay iskaba dhaafba ha ku mahmaahayn marka iyadu marka gabadhaanu way ka yara maaragtay hadalkii araray soo hormarday waxay tiri ilahay xaqa meeshooda la socda hala ogaaday tiri marka bani aadamkana waa laga xishoodaa makhluuqa ilahayna waa laga xishoodaa wada ilaahay xishoodkiisu waa inaad ka harto waxyaalaha xumaanta isagoo ku abuuray isu kaa dubariday habeen iyo maalin ku barwaaqaynaya inaad yani macaasi ugu bedesho waa inaad ka xishootaa bani aadamkana haddi waxyaala waxaa jira lagala xishoodo oo idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'tay noqonaysaa haddaadan xishoonayn waxaa doonta samee ood qof daysanaa tahay wey marka waxay tiri iyadoo markaa arar sii gudbinaysay cudurdaar in allah laa yastaxyi kama xishoodo min alxaqi xaqe fahal cala almar'ati haweeneyda dusheeda ma yahay min quslin qubays إذا احتلمت هذي ريوتو أو مركا أيضا نكدي ما ركت لبا شالي سأيكون ريوتو فقال رسول الله رسولك على مركا صلى الله عليه وسلم نعم ها إذا هي رأت الماء هذي بيعركته لكن هذي قف دور رياض أو سوى ما ركت نك أو سوى هو نيدي سي أما هو نيدي أيضا نكدي لا ما ركت لجوك طلع ياري سأيكون ريوتو قفك رياضة قبيس هو جيوميس بذاتها لكن قبيس هو إيمانه يا إلى مركز أدركته بيجي أدركتوه وين بيجي أركته إلا واد إسكهور ديدي هواني اسمع رجع واد ريوتي هوان تنو والله ميدو ديسيدا سو كلا بيو ويلاد هاي سيدي رجع ولياي ولو معناها هاي رجع كله يكون بدين حاجة ما رتي الريوين كان وعى النبي قال عليه الصلاة والسلام وحير حاجة أكاشوف وجي ما هذا الماء هداني بيلا هاي الرورت معناها هاد بقفك بيها لا صهر مرة أي عنق أكانية وحديث صحيح مركب يعني لياب مله marka waa shardi laakiin inuu qofki inuu maarata arka waxa kale laga yaabaa qofki iska jooga oo bariyoomba inuu arko biyo raadkooda mani sax ah waa qobaysanaya الحديث الثالث وثلاثون حديث كصدح صدنات أنا عائشة وحال قولي رضي الله عنها قالت وحيت لي كنت وأنا أغسل مد ما يرتال جنابة منيدك أيام كم ما يرشربت جنابة هذا مني لرجل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي النبي فيخرج النبي وبيحجر إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه يضو بيها لبعهودي أي كم مغضان مرديس وفي لفظ للمسلمين وهو لقد كنت وأنا أفركه متجبدا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض النبي فكان ججبين فيصلي فيه مكة وكنت كان شري صلى الله عليه وسلم مركا هل كان وحا لقد قال إياه ونوغا الشيء حديث كاني منيدا مركا ولا اسكو خلافي oo ninka la yiraahdo xanafiyada madhabka xanafiyada iyo maalikiyada waxay leeyihiin waa nijaas
laakiin sida xooga badan ee imaamu shaafici iyo imaam axmed bin xambal iyo maaragtay asxaabu lxadiid ama ahlulxadiid iyo ibnu xasm iyo maaragtay rag badan muxaqiqiina iyo ibnu taymiya raggaas ay qabaan waxa weeye oo daliilkuna ku cad yahay nijaas maaha manidu nijaas maaha kuwa nijaasta waan soo marnay laakiin manida caadiga nijaas maaha iyado qubays un bay waajibdaa weeyaan marka can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahay aqsilu mid mayrta aljanaabata janaabada min thawbi rasuulillahi ka mayri jiray sal allahu alayhi wasalam fayakruju nabigu uu ku bixi jiray ila salaati salaada uu bixi jiray wa ina buqcalmaai fii thawbihi iyadoo biyaha dhibcahoodii ama raadkoodii maradiisa ay ka muuqdaan marka biyahan marka ama waxay noqonayaan biyihii la mayray mayritaankii raadkooda iyagoo qoyan weli ama waxay noqon karaan biyihii manida ahay oo markaa waa la dhaqay laakiin ha la dhaqee raadkiyaa ku yaalla weli labada waa noqon karta marka dhaqitaankuna de waa linadaafa noqon karaa shay kastoo iska dhaqaa macnihiisu maahan inuu shaygaasi yahay nijaasi ha maaha wax badan waxaa jira nijaasayn laakiin linadaafa la ysaga dhaqo wa fii lafdin limuslimin lafdi kaleo muslim usugnaadana wuxuu ahaa caaisha ay tiri laqad kuntu waxaan ahay afrukuhu mid jajabida min thawbi rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam marada nabiga ayaan jajabin jiray oo manidaas ku taal markaa farkan jajabin fa yusalli fiihi markaasuu ku dukan jiray taasna way caddaynaysaa in markaas aanay nijaas ahayn ila haddii nijaas waa la dhaqi lahaa jajabin kuma filaatay الحديث الرابع والثلاثون حديث كأفر يصدرات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي قال وحير إذا جلس هدو فريستنكو بين شعبها هوين إذا لامهد على 4 أفرتاه ثم جهد أو دذاله فقد وجب الغسل ومسك وواجب وفي لفظ للمسلمين وحوها وإن لم ينزل يانوبا بيدجن ها حديث كلنا وحو الشيء يا قفكم مركو ما ركتي ninku markuu ku dadaalo haweeneyda jamaaceeda afar tallaamo hadda uu sheegaya waxa weeye waa labada gacmood iyo labada lugood weeyaan sida macnaha xooga badan tafaasiir kale way ka bixi culamada qaar laakiin sida hadda ay ku caddahayo xoog badan waa sidaa hadduu ku dadaalo qubays baa waajibay riwaayadda kale waxay ku dartay hadduu doonayaan biyo ka imaanba marka macnihii anaga habeen dhood soo marayno ida altaqal khitaanaani faqad wajaba alquslu wey haddii labada gudmin istaabtaan qubays baa waajibay ومعني حبينتا ترنك نينكا اي حبينتا ترنك هوانيدا هدا استابتان خلاص قبيس حالا واجبيك مت ويا وانتهى الحديث الرابع والثلاثون حديث كأفر يصدنات عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوي الرسول كي قال اذا جلست منكم هدو فريستو بين شعبها هوانيدا لاميد الاربع افرت ثم جهد او مركا ددالو يعني او مركا جماعه كددالو وي فقد وجب الغسل قبيس واجب وفي لفظ للمسلمين وحوها وإن لم ينزل يعني بيدجنبا يعني بيبقى إيمانه مركب حيالا قبيسك واجبية كمتها ويان الحديث الخامس والثلاثون حديث كشنية صدران عن أبي جعفر وحالة ولي محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنه أنه ننكا كان هو إسرائي وأبوه أبيه عند جابر بن عبد الله الصحابي قال لنا رضي الله عنه وعنده جابر أكتي سنوع قوم ضد فسألوه وعي ويديان عن القسل قبيسكي فقال وحي يكفيك صاع باكو غفرا أفر بد أما أفر كوب ويا فقال رجل نبا وحيري ما يكفني إقو ما في الله فقال جابر بايري كان وحوا يكفي متكفلا من روح هو يستقب أوفى كاوين منك حقا شعرا حقا تنت أو خير منك خير بدن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهد رسولك الله كوكو بيستين شري ثم أمنا ونا إمام بن نقضي في ثوب هالمرء وفي لفظ نوحوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله هو يفرق متكش بالماء بيها على رأسه مدحيسة 3 صدح شهر أبي جعفر الباقر وي مركا محمد ابن علي بالليلة وحاق زين العابدين ابن علي زين العابدين ابن حسين عليه لا زين العابدين وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب وأنا إمارة إني كان أبي جعفر وإني كان يدك كتريان إني كان شيعة إلى هذا لبي توان إمام هذا أي شيء كان معنا إمام سيدي سووا حوي معناها وصمينا يا وإنه أما الشيخ يا عالم وضدك الدين تبرع أما إنه يعني هو جامية وضد معموله وضدك المسلمين تاي معمول لكن إمام جد سجح لنا ملك كتاجر إن هو سو كل يوم حكى إمامي هو حاس هو إمام يعني
waa nimankii mawlaca lahayo kalo in qof mawlac iskaga jiro masaajidka tegi maayo dadki diin u akri maayo isagu diin akrisa maayo halkaasuu jooga sheika noo geeyaa lili muxuu sheegi de sheik markaa u tegay waa inuu wax ka faa'idaa maxaad ka faa'idi waa wax la yaab leh marka waa isu dhow yihiin nimanka shiicada iyo marka aragto kuwa mutasafi maxaa suufiyada way is shabahaan siba isugu dhow wax aan macno lahayn ayuun baad ku arkaysaa ya dadka in laga fogaado ha saxba maahan de waa in dadka kudhex jirto dadka waxbar midaka qofka hadduu shiik yahay waa inuu ama kutub qoro ama kutub akriyo ama niman isagii waxba aksanayo cidna wax akri maayo halkaasuu jooga qof xanuunsana la keenay iyo xaggaa laga dhacay iyo waxaasoo maanta o dhan wadaa qofka hadduu xanuunsana dhaktar maata adiga dhakhtaraa loo geynaya haddii kale gurigeeda quraan lagula akrinaya ama ida isku akrinaysa qofka saaba isku akrin kara wax dhibaataa ma yaalaan marka imaamay dhahaan marka wuxuu yihi ninkaas isagii aabihiya waxay u yimaadeen jaabir bin cabdullaahi saxaabigii jaliilka ahaa oo markaa qoom dad ag fadhiyaan oo su-aal la weydiinayo ilaa nimankaasu sidayno kale maahano markii la isu yimaado fadhi kudir iyo maxaa la yiri iyo meesha bay taalo qiila waqaala waxaa laga wada hadlayaa arrin diina bis diina la iska wareysanaya marka waxaa la weydiiyey war qubayska ka waran maxaa igu filan markaasuu yihi afar saddex litar qaadka tolow ka weyn yahay tolow saddex litar qaadka oo kale caag ah meelahaas inuu yaa laga yaaba nanu kaba yarin afar koombo wey koombooyin macnaa koombo weynna maa koombadu marka wuxuu yihi kaasaa kugu filan bu marka nin meesha fadhiya wuxuu yihi aniga uma filla markaasuu yihi qof adiga kaatin weyn ayay ku filan oo kaana khayr badanoo hadday dahaaro tahana kaa dahaaro fiican la soco ya maya israafku isagu mama fiicna laakin hadda macnaheedu maahan intaas ka badan kuma qabaysan kartid maaha macnaheedu macnuhu sidaas maaha ya way kugu filan tahay wey macnaha lakin qasab maaha waad ka badsan kartaa marka wuxuu yihi nabiga alayh sala slam timihiisu marna waxay ku joogeen halkaan dhegta balaqdeeda marna garbay gaari jireen alayh salatu salaam marka wuxuu yihi qof kaa tima weyn ya oo kaa khayr badan ayay ku filaayeen bu marka kadibna wuxuu yihi hal maro ayuu nagu dujiyey bu hal maro marka iyadana wuxuu kutusayaa inay banaan tahay hal mar in lagu dukado adoo hal mar haysta lakin haddaad ka badan heli karto yani waa inaad maaragtay kor wax saarataa saasaa wanaagsan hadaad heli karto hadaadan haystan hal mar waa kugu filanta shaaficiyaduna waa kuwa yihahdaa bayna surati wa rukbati xundurta iyo jilbaha inta ka dhexayda unbaa waajib ku ah qofka ninka marka laakin de madaxa qasab maaha madaxa waa arka masaajida qaar waxaa la dhigaya koofi tira badan la dhigaya marka qofkii soo galo madaxa loo gelinaya taas wax macno le maaha madaxa waxba qasab maaha iska sheeg الحديث الخامس والثلاثون حديث كشنية صدنات عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين وحالقولي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ننكاس كان وحوه هو يسري وأبوه أبيه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنده أكتو نوعها قوم من ضد مركا محمد بن علي نستغنى وحوها أن تابعيه أدونا أكسبوها تابعي جليلة أيوها كنتم يلحدي بقول الشيء جلالة مركا وحونا دينتي بقول أفريتهم وعنده أكتي سواء جابر قوم ضبها فسألوه حي ويدير على الغسل قبيسكي فقال وحيري يكفيك ساعة سوس باك وفن فقال الرجل نبا وحيري ما يكفيني يقوم أفلا فقال جابر وحيري كان وحوها سو مار ساعة أما أفر تاكم به يكفي متكو في المن روح هو يسقى وفا كاوين منك حاجة شعر حاجة انت هو خير منك كخير بدل يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قالوا دون أيوه كذا ثم كقد الأمنا ونو إمام نقضي فيه ثوب هالمر وفي لفظ نوحوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحوها يفرغ متكوش بالماء بيها على رأس مدحيس ثلاثا سدح شير قبيسكي ويواجبك قال المصنف وحوه رحمة الله عليه الرجل نيك الذي كاسو قال يري ما يكفي ومفل هو الحسن وي ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب وهو علي بن أبي طالب وحانا علي محمد بن علي محمد بن علي سوى فاضل مطلب وحا علي قبل ريب بن حنيفة محمد بن حنفية الليلة وأبوه أبيه هنا محمد بن حنفية الليلة هذا قال المصنف وهو الرجل نك الذي كاسو قال ما يكفني يقوم في الله هو النكاسي الحسن وي حسن بن محمد بن علي ابن أبي طالب وي رضي الله عنه وأبوه أبيه محمد بن حنفية وي
marka halkaasaan insha allahu tacaala kusoo koobeynaa baabkaas ayaan insha allah hadda ka bilaabayna baaraka allahu fiikum sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed